السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا دمان ولا له وحنا channel كنسان عصب ولا ليال موضوع إنه ما أنت حكوا سابسين هاي سيدي نفسد إذا أودي رجليا سيدي وقرنيها نفط إذا متمرر بدي رجشن فأنا وحول بكدالي ولا ليال قفل بوحنا رجني محير ببلابيا وكعت سيا قفكي وحبو هول وصلها وصلها لا مع الماضي وحا كتش بكان كدي مركب وداريا وحاسنا وحكى لماها ونفسدي سيان رجشنين مركا ولا ليال سي أينو دي رجل إنه نفسدنا وانا دقنا مد مرور بدي رجشن وحنو بهنا إنه هبرانه حكاس وأنو نفسدنا مر walba ka dhigi karno mid dhiri gashan mid wax walba qabsan karta walaalayaal hababkaas waxa ugu horeeya bedel qaabka aad tahay hadda sidee baan ahay hadda waxa laga yaabaa inaad isleedahay imtixaan diyaarso inaad isleedahay waxaan diyaari kadib in aad markiiba ka caajiso isleedahay ma diyaarin karayo waa kan waxa inaad isleedahay mawlkan iska yar daawanaya inaad wax kale soo sheekeynayso waxaad u bedelaysaa naftaada waxa aad rabto ee aad jeceshahay samee kadib waxa ku soo baxaya in aad wixii markaa ku soo noqoto aad jeceshahay midna ba imika waxa jeceshahay inaad suuq u yar baxdo inaad video yar daawato inaad qof in yar la hadasho waxa nafsadu jeceshahay aadka u jeceshahay samee marka hore kadibna u soo noqo waxay naftu ka raahsanaysay kadib waxaad arkaysaa adigoo wixii sameynaya ku dhaqaaqayo waxayna ka mid tahay hababka ugu fiican nafs loo dhiirigeliyo qodobka ku xiga mar walba ama wax walba dhinaca wanaagsan ka eeg qofku haddii wax walba dhinaca wanaagsan ka eego waa qofka guuleysta badanaa waxaa la dhahaa dadka guuleysta waa dadka mar walba dhinaca wanaagsan wax ka eega maada ayuu ku dhacayaa wuxuu keenayaa zero wuxuu dhahayaa waan ku baasa nafsadiisu ma baxa karsanayso ma niyad jabaso marka waxa loo baahan yahay walaalayaal inaad mar walba dhinaca wanaagsan wax ka eegto dhinaca wanaagsan mar walba wax ka eeg qodobka ku xiga shay walba waqti fiican oo kugu wanaagsan oo aad firfircoon tahay samee shayadoo dhanna ha isku wada koobin ama wax walba ha oran mar baan wada qabanayaa waynu ognahay bili aadan baynahay qof haddii wax isku badiyo markii waa u daalaya maalin walba darsi macayana qaado wax gaara qabso kadibna waxaad arkaysaa adigoo aan daalayn maalinta ku xigtiisu ka dhiibayso laakiin haddaad tiraahdo maanta ayaan waxaan qabanayaa intaas oo wax baan qabanayaa waad daalaysaa waxaana kaa galaafanaysaa intaas oo sano oo noloshaada ka mid ah qodobka ugu xiga walaalayaal waxa weeyaan ahdaaftaada ama yoolalka aad leedahay ha u sheegin cid kale waxaan ka wadnaa qof waliba wuxuu leeyahay yool ama hadaf uu leeyahay isla gaadh matalan ba imika waxaad leedahay aad kaalin gashid ardayda la dhigato aad kaalinta koobaad u gashid haddii aad tiraahdo sanadka soo socda anaa dadaalaya anaa kaalinta idin gelaya waxa laga yaabaa ardayda wax walba aad ku arkaysaa mid ku dhaxa mid geli kartid iska fadhiiso iyo mid ku dhaxa waad geli kartaa marka waxa laga yaabaa inaad niyad jabto ama aad ku faraxdo hadallada ay qaar kugu leeyihiin oo aad markaa istiraado niyadda iska tiraado waad gashay kaalintii oo aad ka dhacday hadhashay noloshii marka walaalayaal waa qodob aad iyo aad u muhiim ah ha u sheegin ahdaaftaada cid kale qodobka u dambeeya ee sida loo dhiirigeliyo nafsadaada ama inuu dhiirigelino nafsadeena waxa weeyaan inaynu akhrino qisaskii ama taariikhdii dadkii inaga horreeyay ee guuleystay waynu ognahay dad baa guuleystay dad baa adduunkan mala keenay dad baa cilmigan aynu akhrisanana keenay dad baa waxyaalo badan oo adduunkan imka aynu ku noolahay gacantooda ku keenay ilaahay amarkii marka laga yimaado marka walaalayaal ama ilaahay sababtiis qofku dad baa soo dadaalay oo juhdi ku soo bixiyay marka dadka taariikhdooda akhri kadib waxaad arkaysaa in aad jeceshahay dadkaas meesha ay gaadheen kadibna biri ka maalin aad gaadho oo aad gaari kartaba walaalayaal موضوعنا ما أنت تسأيه كسبسين هاي هدي أتكه شيء مقال كلك نصار هدي أتكو عصبتها بيت كسان عصبنا السبسكرايب نورده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.